daawada waxaad ku soo dhawaataan su'aalaha kediska ah xeeladaha oo in soo jeedin doona anigoo Xanaan Khaliif. Su'aalahan waxay ka kooban yihiin 3 su'aalood mana la wax jawaab ah. Fadlan isku dayna jawaab hoos inoo soo qorto. Jawaabo waxaa soo raacsin doona barnaamijkan xiga. Professor ka tirsan jaamacadda Yale ee caanka gudaha dalka Mareykanka ayaa soo saaray imtixaan ugu gaaban adduunka ee lagu qiyaaso IQ qofka. Waxa uu hintay 3 su'aalood lagu qiyaaso heerka caqli badnaanta qofka. Caadi ahaan imtixaanka lagu qiyaaso qofka heer caqli badnaanta waxay qaadataa waqtiyo badan. Su'aalo aad u tiro badan iyo waajibaadyo kala duwan qofka la marsiiyo. Shane Frederick oo ka tirsan jaamacadda Yale University oo ka tirsan gudaha dalka Mareykanka ayaa imtixaanka kooban horumarsan hindisay. Waana sida sheegayso jareerada Freundin ee ka soo baxda dalka Jarmalka. Su'aalaha saddexda ee imtixaanka ayaa u muuqata marka hore su'aalo sahlan, laakiin jawaabahooda ayaa ku siraya waxaan loo sameeyay saddex xeeral oo kale. Balse ogow markasta jawaabaha ugu degdeg noqdaan qiimeynta IQ way kordhaysaa. Haddii aad ka jawaabto saddexdan su'aalood waxaad ka mid tahay dadka dunida u aqli badan. Fadlan si taxadar leh isaga eeg. kubadda iyo alwaaxda lagu ciyaaro golofka ayaa qiimahooda wada jir u ah 1.10 senti euro. Alwaaxa ayaa ka badan kubadda oo la iibiyo 1 euro. Haddaba imisa ay noqon karaa qiimaha kubadda? su'aasha labaad, haddii 5 makiinadood ay u baahan yihiin 5 daqiiqo si ay u soo saaraan 5 waxyaabood oo kala duwan, waqti intee leeg ayay ku qaadanaysaa 100 makiinadood inay soo saaraan 100 waxyaabood oo kala duwan? su'aasha saddexaad, haddii bali dushiisa ay daboosho caleenta geed ubaxeed, maalin kastana uu laablaabmayo tirada ubaxa dushiisa ee baliga. Haddii xilligii caleenta geedka uu ka daboolmayo dhammaan baliga ay qaadanayso 48 maalmood, imisa maalmood ayaa loo baahan yahay si baliga kala bar caleenta u daboosho? jawaabaha ugu badan ee dadku bixiyaan waa qalad. Fadlan si taxadar leh u eeg.